waxaa waxaa maanta ka aragnay shaashadaha waxaan ka aragnay TV-ga mataqaana Ethiopia-anka ama warbaahinta Ethiopia oo laga soo daayay waa salaamaha Habar Fartuun Axmed Diini laga soo daayay Cabdi Ilayo lagala baxay gurigii mataqaana gurigii oo ka deganaa sababa oo la bahdilayo oo macnaha xitaa in la xiro caadi loo xiro waa la diiday si ay oromadu u bahdilaan ayaa waxa lagu sameeyay bahdilaadii ugu xumayd oo TV-da xitaa laga baahinaya marka waxa dhici karta in dad Soomaaliya mataqaana ay arintaas wax caadi u arkaan oo ay ku farxaan ay dhici karto waana ani marka sababta aan hadda la soo galay live-ko ana maalmaha hawlo kale ku mashquulsanaay safar isaga jiray aan mataqaana aan arinta ina ka hadla aan ugu aasaday waxa weey horta Cabdi Ilay dambi ma galay mise ma gelin laga ma hadlayo Cabdi Ilay la heesto ahaa isaga yaran kala shaqeynayay oo meesha mataqaana dhibaato ka geysteen taasi waa arin la og yahay laakiin tan meesha taal waxa weeye hello في أنا وكما إيه أنا مشغول سنة ما يسوق اللايف أنا كجراي هاي مركب واحد لك هذا وحاوي عبد إلي يا محكمة ذين كنا عبد إلي الدين بالله وحاله محكمة ذين كنا جيجا لكن أورمada inay yiraahdaan mataqaana shidaalku wanaga hor taagnaa iyo mataqaana Oromo mataqaana ay halala dagaalay iyo godob Oromo in lagu xiro waxa weey Soomaaliya ay ku tahay in Cabdi Ilay jigjiga lagu qabtay jigjiga lagu maxkamadeeyo Soomaaliya ay ku tahay hadii Cabdi Ilay dambi leeyahay waa in jigjiga la keenayo jigjiga mataqaana lagu maxkamadeeyo asaabiin lagu maxkamadeeyo waa ceeb maxay ceeb ku tahay waxa weey Ethiopia ninkii ama sirdoonka heestaa jooga ra'iisul wasaarihi joogo kuwi marka xilliga mataqaana talada hayay ee taadiida geysanay ee Oromada ahaa ee Amxaarada ahaa ee Tigreega ahaa waxba laga ma qaadi karo lama hadin lama soo xirin way Cabdi Ilay kaliya ay mataqaana oo raadsanayaan ninka cusub Oromada ah macnaha waxa weey Cabdi Ilay Soomaaliya ka dhashay Soomaalida waa dadka noocaan ee mataqaana aan qadiyada fiican lahayn marka ani waxaan qabaa qof kasta wax garta Soomaaliya Cabdi Ilay xaquuqdiisa ha u doodo isaga dib u geystay gooni weeye Cabdi Ilay xaquuqdiisa mataqaana waa in loo doodo waa in jigjiga la keenaa ninka madaxweynaha cusub ee mataqaana Mustafa waxaan leeyahay ninkan hadaad matasho oo adigu maqaarsaar ahayn ninkan u yeer ninkan halagu soo wareejiyay baarlamaanka waxaan leeyahay shir hay yeeshaano hadda hano Cabdi Ilay jigjiga la keeno idinka xukuum markaas Cabdi Ilay haduu dambi galay laakiin yeysa Oromo xukumin yeysa Tigreeg xukumin yeysa Amxaara xukumin waxa ogaataan waxa oo lagu sameeyay Cabdi Ilay hayay ku macani wax magaca Soomaali lagu sameeynaa maxaa yeelay hadii ninka gaangistarka ah ee dimada geystay Oromada aan la hadli karin kii Tigreeg aan la hadli karin kii Amxaarka aan la hadli karin way kan Soomaaliga ah loo hadli karaya Soomaali waa la haystaa asna waa dhulka Soomaaliyeed waa la haystaa horna waa loo haystay haddana waa la haystaa waxayna muujinaysaa kuwaas dad inay leeyihiin wax kastay geystaan uga raaliya laakiin kan dad oo salahayn marka magaca Soomaalina waa ilaalinayno waxa weeye aniga Cabdi Ilay ogtiin wax naga dhaxeeyo laakiin Cabdi Ilay waa in jigjiga lagu maxkamadeeyo hadii la maxkamadeynayo lama qaadan karo Ethiopia أسأبا يو مال كلام إن متعلق محكمة وكاسا وإن سلامية مقالة دي يكون صلابتي هالكاسا جوهولن وي وكاسا هالكاسا جوهولن وواركا سوما هالكاسا جوهولن وي مقع الصومالية الإلالية عبد إلي حقوق سالات دوضو أسود الدنبي قلي Soomaaliya la xisaabtamayso Soomaaliya maxkamadeynaysa Soomaaliya mataqaana daba joogto ma fahamtay laakiin aniga ina kamera la qaato nin Soomaaliya oo magac Soomaaliya wato isku abtirsiinahay ay Oromo meelaha ku sawirto oo la bahdilo oo hore gada loo wado waxa weeye caayan u arkaa waxaan u arkaa bahdila Soomaaliya la bahdilayo
haddousan ninka tagareegaa soo qaban karin kii sirdoonka haystay kii ciidanka haystay yaa ciidanka cabdi ilay soo nin ma xukumin cabdi ilay soo dad ma xukumin soo dalka rasuul wasaare kama jirin aawen kuwaas maxaa loo xisaabtami waaye marka xisaabtan ha yimaado anigu saasaan qabaa qof kasta Soomaaliya waxaan leeyahay xuquuqda cabdi ilay maanta waa shacab waa inaa u doodaan wabillahi tawfiiq